Assalaamu calaykum. Waxaan filayaa dhammaantiina in aad horay u maqasheen nin lagu magacaabi jiray Khadir oo aad la yaabteen sida ay dadku u qadariyaan oo ay uga sheekeeyaan karaamooyinkiisii la yaabka badnaa. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala ku xusay Qur'aankiisa kariimka ah markii uu nooga warramayay qisadii dhex martay isaga iyo Nebi Muuse calayhi salaam. Balse sidee buu Khadir aqoontiisii iyo karaamooyinkiisii la yaabka badnaa ooga yaabsaday Nebi Muuse calayhi salaam? Maxaase Khadir magacan loogu bixiyey asalkiisii hore? Ma dhabbaa in uu nool yahay ilaa iyo maanta? Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa tafaasiil fara badan oo la yaab leh oo ku saabsan qisadii dhex martay Khadir iyo Nebi Muuse calayhi salaam, anigoo daliil uga keeni doona Qur'aanka kariimka ah iyo sunnadaba. Daawasho wacan, balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiira geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Waxaan marka hore idinkaga warrami doonaa qisadii dhex martay Khadir iyo Nebi Muuse calayhi salaam. Kadib ayaan idinkaga jawaabi doonaa in Khadir uu nool yahay iyo in kale. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Nebi Muuse calayhi salaam ka dhex istaagay qowmkiisa isagoo u khudbaynayay oo waaninayay. Markaas buu wax badan uga sheegay waxyaabihii uu Alle subxaanahu wa tacaala baray, wuxuuna u jeediyey khudbad aad u la yaab badan oo saamayn leh, taasoo dhammaan qoomkiisu ay la fajaceen oo dadkuna ay aad ula yaabeen. Markaas buu nin ka mid ahaa qoomkiisa intuu soo hor istaagay ku yidhi, yaa nebiyallah, ma jira oo ma laga helayaa adduunyada qof adiga ka aqoon badan? Markaas buu Nebi Muuse calayhi salaam ugu jawaabay maya. Kadibna Alle ayaa canaantay Nebi Muuse calayhi salaam maadaama uusan isla markaas Alle uga mahadcelinin fadliga iyo aqoontii uu siiyey. Markaas buu Alle subxaanahu wa tacaala u waxyooday Nebi Muuse calayhi salaam oo ku yidhi, Muusow, maxaa ku ogeysiiyey halka uu Alle dhigayo aqoontiisa? Waxaan leeyahay addoon adiga ka aqoon badan, kaasoo ku sugan majmacal baxrayn ama halka ay ku kulmaan labada badood. Markaas buu Nebi Muuse calayhi salaam rabbigiisa weydiistay waddadii uu u mari lahaa. Markaas buu Alle subxaanahu wa tacaala ku amray in uu soo baxo isagoo horeyna u soo qaadanaya xuud ama malaay weyn. Wuxuuna u sheegay in meesha uu malaaygaasi kaga carari doono ay tahay halka uu ku sugan yahay ninkaasi. Kadibna Nebi Muuse calayhi salaam ayaa soo baxay isagoo uu la socday adeegihiisa oo la odhan jiray Yuushac. Waxayna lugaynayeen ilaa ay ka soo gaareen meel uu yaalay dhagax aad u weyn. Markaas buu Nebi Muuse calayhi salaam go'aansaday in ay ku nastaan dhagaxan hoostiisa. Kadibna Nebi Muuse calayhi salaam ayaa gam'ay oo hurday. Iyagoo sidaas ku sugan ayaa waxaa dhacday in malaaygii ay wateen ay soo gaaraan xoogaa biyo ah oo ka mid ahaa biyihii badda. Markaas buu Alle subxaanahu wa tacaala soo noolaysiiyey malaaygii, kadibna baddii ayuu dhex galay oo ku cararay. Wax yar kadibna Nebi Muuse calayhi salaam ayaa ka soo toosay hurdada. Kadibna waxay meesha ka sii wateen safarkooda. Yuushacna wuxuu iloobay in uu Nebi Muuse calayhi salaam u sheego malaayga iyo wixii ku dhacay. Waxay sii wateen safarkooda ilaa ay aad ula daaleen socodka dheer iyo mashaqadii safarka. Markaas buu Nebi Muuse calayhi salaam adeegihiisa ku yidhi, noo soo diyaari cuntadeena. Markaas buu Yuushac xasuustay wixii ku dhacay malaaygii. Markaas buu ku yidhi, yaa nebiyallah, soo ma xasuusatid markii aan dhagaxii weynaa hoostiisa hurdaynay? Markaas ayuu malaaygii badda ku cararay, shaytaan ayaana ilowsiiyey in aan kuu sheego.
markaas buu nabi muuse calayhi salaam aad u farxay oo ku yidhi, taasi waa waxa aan sugayay. kadibna waxay dib ugu soo laabteen halkii uu ku yaallay dhagaxii weynaa. markaas bay waxay arkeen nin intuu maro isku daday dhulka jiifa. ninkaasoo ahaa ninkii uu nabi muuse calayhi salaam raadinayay. magaciisana waxaa la odhan jiray Khadar. markaas buu nabi muuse calayhi salaam salaamay Khadir, kadibna Khadir ayaa ugu jawaabay, xaggee baad iga soo salaantay? markaas buu nabi muuse calayhi salaam ugu jawaabay, waxaan ahay Muuse. kadibna Khadir ayaa ku yidhi, ma waxaad tahay muusihii banu Israa'iil? markaas buu ku yidhi, haa, waxaan rabaa in aan ku raaco si aad wax iiga barto waxyaabihii uu Alle subxaanahu wa tacaala ku baray. markaas buu Khadir ugu jawaabay, soo kuguma filna in aad haysato Towraad oo uu waxyiguna kuu yimaado? maxaa yeelay uma dulqaadan kartid in aad i raacdo. muusow, aniga wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala i baray wax adiga aadan aqoonin, adigana wuxuu ku baray wax aniga aanan aqoonin. markaas buu nabi muuse calayhi salaam ugu jawaabay, qaala satajidunii in shaa allahu saabiran walaa acsii laka amraa. in shaa allah waad i arki doontaa in aan ku sabraayo wax walba oo aan kaala kulmo. waxaad amartana ma khilaafi doono. markaas buu Khadir u oggolaaday in uu raaco nabi muuse calayhi salaam, balse wuxuu ku shardiyey in uusan waxba ka weydiinin waxyaabaha uu ku arki doono ilaa ay ka gaaraan dhammaadka safarkooda. markaas bay nabi muuse calayhi salaam iyo Khadir soo baxeen iyagoo socda ama ku socda xeebta. kadibna waxay arkeen doon ku socotay badda. markaas bay doonleyda ka codsadeen in ay horay u sii qaadaan. kuwii doonta watay ayaa gartay Khadir, balse ma aysan garan nabi muuse calayhi salaam. kadibna si lacag la'aan ah ayay ku soo qaadeen iyagoon waxba kaga beddelanaynin ama waxba ka qaadanaynin. markii ay doontu soo gaartay meeshii ay ku xiran lahayd oo ay soo istaagtay, ayuu Khadir alwaax ka mid ahaa alwaaxyadii ay doontu ka samaysnayd intuu ka jebiyey badda ku tuuray, isagoona doonta dhinac ka dilaaciyey. ficilkan uu Khadir sameeyey ayaa nabi muuse calayhi salaam si weyn uga fajiciyey. markaas buu is yidhi, dadkan waa ay idin karaameeyeen, weliba iyagoon waxba idinka qaadan ayay idinsoo qaadeene muxuu doontooda uga duleelinayaa oo uga kharribayaa? nabi muuse calayhi salaam ayaana u dulqaadan waayey in uu ka aamuso. markaas buu isagoo caraysan Khadir ku yidhi, qaala akhraqtaha litughriqa ahlaha qad ji'ta shay-an imraa. ma waxaad doonta u duleelisay in aad maanshayso ahalkeeda? waxaad bala timid wax aanan la qaadan karin. markaas buu Khadir isagoo caraysan soo eegay oo ku yidhi, qaala alam aqul laka innaka lan tastatiica maciya sabra. soo horay kugumaan sheegin in aadan u dulqaadan karin in aad i raacdo. markaas buu nabi muuse calayhi salaam soo xasuustay wixii uu kula ballamay Khadir. markaas buu u cudur daartay oo ku yidhi, ha ii qabanin waxaan iloobay ee ka raalli noqo. markaas bay dhaqaaqeen oo socodkoodii meesha ka sii wateen ilaa ay u yimaadeen wiil yar oo la cayaarayay carruur kale oo saaxiibadiisa ah. markaas buu Khadir wiilkii intuu gacantiisa madaxa ooga qabtay qoorta ka kala siibay oo dilay. markaas buu nabi muuse calayhi salaam aad ula yaabay oo dareemay cabsi iyo argagax. allena subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, qaala aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafs laqad ji'ta shay-an nukraa. wuxuu ku yidhi, sidee baad u dilaysaa naf aanan waxba galabsan? waxaad samaysay jariimo weyn. Khadar ayaa ugu jawaabay,
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا muusow horaan kuugu sheegay in aadan u dulqaadan karin waxyaabaha aad arki doonto. Markaas buu Nabi Muuse calayhi salaam ka xumaaday wixii uu sameeyey. Kadibna wuxuu ku yidhi, iska kay cafi oo isaamax, waan is-iloobaye. Hadda kadib haddaan su'aalku weydiiyana iga tag oo weligaa dambe ha ila saaxiibin. Kadibna Khadar ayaa ka oggolaaday oo ku waafaqay. halkaan markaan marayno rasuulkeena Muxamed calayhi salaam ayaa wuxuu yidhi raxmatullaahi calayna wacalaa muusa lowlaa annahu cajal lara'a alcajab walaakinahu akhadathu min saaxibihi dimaama. Ilaahay naxariistiisa dusheena iyo muuse dushiisa ha ahaatee, hadduusan degdegi lahayn waxyaabo badan oo uu la yaabo ayuu arki lahaa, balse waa uu iska qadiyey. Intaas kadibna Nabi Muuse iyo Khadir ayaa meesha ka sii wateen safarkooda ilaa ay ka soo gaareen tuulo dadkeedu ay bakhiilnimo ku sifoobeen, kuwaasoo aanan martida xaqeeda siinin. Labadoodana raashinkii ayaa ka dhammaaday. Markaas bay tuuladii ku leexdeen iyagoo doonayay in ay weydiistaan cunto iyo cabitaanba. Kadibna dadkii tuuladaas degganaa ayaa u diideen in ay quudiyaan ama ay raashin siiyaan. Markii iyagoo gaajaysan ay qaryada ka sii baxayeen ayaa waxay arkeen darbi qalloocday oo u dhow in uu dumo. Markaas buu Khadir wuxuu doontay dhoobo iyo dhis, wuxuuna habeen dhan ku qaatay dhisidda iyo toosinta darbigaas, ilaa uu noqday darbi aad u adag oo ishaysta. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa aad ula fajacay wuxuu arkay, waxaana ka yaabiyey wanaagga uu Khadir u sameeyey dadkan aanan xaq u lahayn, waayo waa kuwii u diiday in ay raashin iyo cabitaan siiyaan. Markaas buu Nabi Muuse calayhi salaam Khadir ku yidhi, waxaan u soo martinay dadkan, mana aysanna marti qaadin, mana aysanna quudinin. Adiguna darbigan ayaad u dhisaysaa adigoon waxba ka qaadanaynin, adigoo awooda inaad taas beddelkeeda ujro ama qarash weydiisato. Waana xaqaagee, maxaadan sidaas u samaynaynin? Allena subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, fawajadaa fiiha jidaaran yuriidu an yanqad faaqaamah qaal low shi'ta latakhadta calayhi ajra. Nabigeennuna sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, Ilaahay ha u naxariisto Muuse, waxaan jeclaan lahayn in uu sabri lahaa si uu nooga warramo arrinkooda. Markaan Khadir ayaa dhibsaday Nabi Muuse calayhi salaam kadib markii uu 3 jeer kula ballamay in uu sabro, balse uu awoodi waayey. Markaas buu ku yidhi, qaala haadaa firaaqu baynii wa baynik, saunabbi'uka bita'wiili maa lam tastic calayhi sabra. Isagoo ula jeeda, Muusow ma sabri kartid, waxaana waajib kugu ah in aad iga tagto, balse inta aanan kala tegin waxaan kuu sheegayaa ujeedooyinka waxyaabihii la yaabka lahaa ee aad aragtay anigoo samaynayay. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. taasoo uu ula jeeday kuwii doonta lahaa waxay ahaayeen dad wanaagsan oo aad u fiican, waxaan rabay in aan abaalkooda u gudo. Waxaa halkaas joogay boqor daalim ah oo qaadanayay doon walba oo cajabisa, wuxuuna iska dhaafayay doon walba oo ceeb leh. Waxaan doontooda u jebiyey si boqorkaas uusan uga qaadanin doontooda. wa ama algulaam fakaana abawaahu mu'minayn fakhashiina an yurhiqahumaa tughyaana wa kufra. Wuxuu ku yidhi, canugii yaraa ee aan qoorta ka kala siibayna wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala i ogeysiiyey in haddii uu weynaado uu noqon doono nin kaafir ah oo isla weynin badan oo ahalkiisana dhibi doona oo dhibaatooyinna u soo jiidi doona.
wuxuuna sidaas u samayn lahaa gaalnimo iyo xadgudubkiisa awgii. Allena subxaanahu wa tacaala wuxuu i ogeysiiyey in uu ku irsaaqi doono canug wanaagsan oo u gargaari doona. Markaas baan dilay anigoo u naxariisanayay waalidiintiisa. darbigii tuulada aan ku dhisayeyna wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala i ogeysiiyey in ay iska lahaayeen 2 canug oo yaryar oo agoon ah. waalidkooduna wuxuu ahaa nin wanaagsan, wuxuuna keed ugu qariyey darbiga hoostiisa. waxaana ka baqay in darbiga uu dumo, kadibna kaydkii ama kansigii uu soo muuqdo, oo kadibna dadkii tuuladan ee bakhiiliinta ahaa ay ka qaataan oo ay ka qadiyaan. markaas baan u adkeeyey oo u dhisay si 2dan agoon ay u soo baxsadaan markii ay waaweynaadaan. kuwaasina waa tafaasiirta ficiladii aad u dulqaadan kari weyday in aad indhaha ka daawato. Khadir waxaa magacan loogu bixiyey sida ku soo aroortay axaadiis saxiix ah. Khadir ayaa maalin maalmaha ka mid ah dhex fadhiistay dhul qallalan oo carracad ah oo aanan dhir lahayn. kadibna Ilaahay qadartiisa dhulkii ayaa isku beddelay dhul cagaaran, taasoo ahayd karaamo uu Alle subxaanahu wa tacaala ku karaameeyey Khadir. dhacdadaas wixii ka dambeeyeyna Khadir ayaa lagu magacaabay Khadir. waxay dad badani aaminsan yihiin in Khadir uu weli nool yahay, karaameyn uu Alle subxaanahu wa tacaala karaameeyey awgeeda. balse xaqiiqada ayaa waxay tahay in inta badan culimada ay isku raacsan yihiin in uu dhintay oo uusan noolayn. balse waxaa jiraan riwaayado badan oo aanan daliil lahayn oo ku sugan kitaabada qaar, kuwaasoo sheegaya in uu nool yahay. balse riwaayadaha qaar lama qaadan karo sanadkooda oo daciif ah awgii. sida raajax ahna waa in uu geeriyooday oo xaalkiisuna uu la mid ahaa xaaladaha dadka kale ee bani aadamka ah. waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin inaad like saarto oo aad u sii sheergarayso asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.